anigu waxaa la yidhaha xaaji xasan kulmiye waasuge gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee 63 ee gobolka hiiraan gudoomiyadooda ayaan ahay meesha aad u wareysatay deefo iyo kabxanley dad badanaa ka soo noqnoqday wax badan ay soo noqdeen kulli ilaahay mataqaana yaqaano waqtiga ku dhamaalahay laakiin anagu hadii odayaal ahaan nahay hadda koo waa tagnay waa la hadalnay waa sii jeedinay mataqaana baaqa kasii deynay saaka xataa baaqa sii deynay online xabada hala joojiyo ciidanka hala kala qaado hala isugu yimaado mataqaana fadhi hala isugu yimaado geel lama kala qaadin dhul lama kala haysto meesha lagu dirida waa meel dhalahoo mataqaana deegaan ah dowladda guriga ku leeyahay muddo dadku waliba waa dad beeraley ah oo isku diriso isu muuqdo oo weligood isla cabi jiray oo isla cuni jiray oo iska guursan jiray oo isku dhaqmi jiray waxaan u malaynaa gacan saddexaad inay meesha ku jirtaan adeer u malaynaya waayahay marka dagaalkan muxuu salka ku hayaa dagaalkan waa salka ku hayaa gacan saddexaad ayaa meesha ku jirta waa maqlaysay ninka la yiraahdo Faysal Ali Waraabe oo ka soo hadlay Hargeysa inuu wahay deefuuyo kabxanley dagaalka ka socda gacmaha ka laabanayno ninkaas warkiisa aad iyo aad aan uga xumaanay waayo anagu nabadkaas isaaq dir lama lihin xaduud lama lihin waa hala joojiyo dagaalka waa isku dhexleyshay ahanaasi intaan ka filanayna asii guuraayo keenay taageera la soo diraa ciidamada xeraale meeliga lagu soo tababaraa ciidamada la soo diraa dadkan hadda dagaalka gala ma aha dadkii deegaanka ay ma aha dad cusub oo la keenay waaye marka meeshaan dib sahlan ma aha nabadoone gudoomiyaha odayaasha waa adiga ee gobolka Hiiraan markaad hadda fiiriso waxaan lagu dagaalamaya ma dhulba mise wax kala jira waxaan lagu dagaalamaya waxa weeye horta meesha webiga mara oo la yiraahdo webigii Shabeelle webiga mataqaana waxa uu leeyahay dad shaymiya u soo aroora wax la yiraahdo xiriir oo laga cabo leeyahay xiriirkii ay dalka ka jireen dadkii bariga ka imaanay feer ila bulid ma inta u dhaxay 40 kiilo tinguay waa laga wareegta feer loo aroora ama bulidina loo soo aroora xiriirkii dhamaan la jiray xoolihi hadii ay mataqaana waran lagu dhufana xabad lagu dhufana dagaalkana ficil xumo ka kacay ma sheegi karo kulli anigu waxay dabada ku wada laakiin ficilka nimanka hadan wadaadada wadaan ficil xumo waay sidee marka hadda arintan lagu xalin karaa bal maxaa xalay waxa lagu xalin karaa meesha dawladda joogta anigu shacabaan nahay odayaalaan nahay dawladda hadii gacan la siiyo ciidan la siiyo tan ciidan dhexdhigno ayaan isku yeerno oo gobol u dhigno ayaan waxa isku haystaan weydiinay markana haran gaari lahayn maamul ayaa gobolka ka jira maamulkii muxuu idin maamulka maalin dheer waxa loo yeeray anaga gudoomiyaha degmada aqlaaf oo la yiraahdo waxa uu meeshaas odayaashiina digayna dhowr habeen ayaa mataqaana ku soo dhaxaysaan nimankaas arrintaas waa soo dhamaynaysaa aad ka soo shaqaynaysaa sidii loo yiri weli waa sugayna anaga hadii odayaashiina nahay kadibna waxaana dhacayba waayahay marka hadii tani ay sii socoto dhibaato waxay soo gaaraysaa dad shacab ah waxa dhimanaya waa dad Soomaaliyeed kuwa dhaawacmaya sidoo kale dhiiga baxaya waa dhiig dadka Soomaaliyeed ma jiraan hadda qorshooyin lagu joojinayo marka hore rasaasta dadkan isla dhacayaan hadda olala la wadaa odayaasha bariyan ballansanahay waxaan rabnaa inaan baabuur qaadano inaan kaashano wax amniyo hadii mataqaan meesha aan la soo yaabno dad waa ku jirna dagaalkaas waayahay hadda baaqa dirayso ka wax garadahan baaqa dira waxa weeyaan war waxaan la dad wada dhashaatihiin dad dirisaatihiin walaalaatihiin anigu gudoomiyaha dhaqanka odayaasha xasan kulmiye يحتاج أفكار كلها واحد إدلاه فرية جوجية دجالك كورة حبضة كبهية واحد انتواء بالتين يمكن تصور لهمها مثل نورا صبان بدادر ربا واحد يسكوها 60 وصل فد يسوي ماذا يعني كهذا اللي هو حين أفكار اللي هم يسكسوا بالله هذا حبضة هلا جوجية كورة حبضة ما يبيع تغطى أنت تنسوي شيء